السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سويال تي في برنامج كني دعوين كمان يا عبد الرشيد قله ومعني سبتي بيشا جنورينا وكوي طبعا سنة كنا ولا بكون شر يلا بعطن dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha lahow barnaamijkeena maanta waxaynu ku qaadaa dhigi doonaa arrimo badan oo muhiim ah oo loo baahan yahay inaad wax ka ogaataan. waa maxaa ku soo kordhay wadaxaajoodkii iyo wadahadalkii xabad joojinta gaza iyo in dagaalku uu dhammaado iyo arrimihii ka socday qatar oo ay dhexdhexaadinta ka hayeen maraykanka qatar iyo masar. askar lagu laayay maanta magaalada gaza xuutiyiinta iyo dowladda yemen ee la aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay cadan oo isku fara saaray gobollo ka tirsan dalka yemen. maxay tahay colaadda wakhtigan yaa soo kiciyey, maxaase ka dambeeya? arrimahaas oo dhan barnaamijkeena maanta ayaynu ku falanqeyn doonaa. bal aynu ku horeyno dhinaca iyo yemen oo laga soo sheegayo dagaalo u dhexeeya xuutiyiinta iyo dowladda la aqoonsan yahay fadhigeedu yahay magaalada cadan oo ay ku dagaalameen 24 saac ee lasoo dhaafay. haddaba wararku waxay sheegayeen ciidamada yemen ayaa ku dhawaaqay sabtidii fiidkii xalayto inay ku dagaalameen dagaalyahanada xuutiyiinta 3 gobol oo ka tirsan yemen 24 saac ee lasoo dhaafay, sida ku xusan bogga shabakadda ee wasaaradda difaaca ee loo yaqaano Septembernet. dagaalada ayaa bilowday shalayto jimcaha kadib weeraro ka yimid xuutiyiinta, waa sida yemeniyiinta cadan joogta ay ku andacoonayaan, oo lagu qaaday goobo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda yemen ee fadhigeedu yahay cadan. dagaalada ayaa ka dhacay baa la yidhi gobolada maarib ee bartamaha yemen, al-jawf ee waqooyiga yemen iyo ticis ee koonfur galbeed yemen. bayaan ayaa lagu sheegay in dhaawac weyn ay ka soo gaareen xuutiyiinta, waa warka ay sheegtay dowladda yemen ee fadhigeedu yahay cadan, kadib markii ay isku dayeen inay hore ugu soo dhaqaaqaan xariiqda dagaalka ee 3 gobol. kooxda xuutiyiintu weli kama aysan hadlin bayaankaas khamiistii. wakiilka gaarka ee qaramada midoobay Hannes Gromberg ayaa ugu baaqay labada dhinacba inay isxakameeyaan. balanaadno dhinaca iyo gaza oo ciidamo israa'iiliyiin halkaa lagu laayay. ciidamada israa'iil ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey tarab ugu dhimanayay marinka gaza. ciidamada israa'iil ayaa sabtidii ku dhawaaqay in 4 askari oo ka tirsan cutubka Nahal Brigade lagu dilay, halka sarkaal iyo askari kalena si daran loogu dhaawacay dagaal ka dhacay waqooyiga marinka gaza. wargeyska yadcood ayaa sheegay in 4 askari lagu dilay qarax miino oo xoogan oo ka dhacay Beyt-el-Xanuun oo ku taala waqooyiga gaza, isagoo wargeysku xuseyn qoraxu uu bartilmaameedsaday kolonyada ku-xigeenka taliyaha Nahal Brigade, kaasoo sidoo kale ku dhaawacmay weerarka, sida uu qoray bogga wala. wargeysada israa'iil ayaa tilmaamay in ciidamada militarigu ay baarayaan suurtagalnimada in dagaalyahanadu ay goobta weerarka ka yimaadeen iyagoo adeegsanaya tunnel aan weli la helin, isagoo intaa ku daray in goobta lagu weeraray ciidamada ee Beyt-el-Xanuun sida israa'iiliyiintu hore u sheegeen la nadiifiyey oo hadda ay israa'iiliyiintu ay si buuxda gacanta ugu hayaan. dhinaca kale, channelka 12aad ee israa'iil ayaa sheegay in weerarka Beyt-el-Xanuun uu ahaa dhagar 2 geesood ah oo isugu jiray qarax miino iyo rasaas toos ah oo ay soo fureen dagaalyahanada ka tirsan kooxda gaza. warbaahinta israa'iil ayaa sabtidii fiidkii ku warantay in 4 askari lagu dilay, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen qarax lala beegsaday ciidamo israa'iiliyiin oo ku sugnaa waqooyiga marinka gaza, iyadoo baraha bulshada ee deegaanada israa'iil ee la haysto ay ka hadlayeen khasaaro intaas ka badan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo soo gaaray ciidamada israa'iil. maamulka degmada Moale Adumin oo ku taala deegaanada la haysto ee daanta galbeed ayaa sheegay in askari ka tirsan deegaankooda uu ku jiray cutubiyooda Nahal Brigade ee lagu dilay dagaalada ka socda marinka gaza. lama caddayn in askarigani lagu dilay ka mid yahay 4 askari ee la sheegay in lagu dilay weerarkaasi, ama uu yahay askari shanaad oo lagu dilay dhacdo kale oo gooni ah.
waxaana muuqataa in askar badan oo la dilay ay ciidamada israa'iiliyiintu ay qarinayaan iyagoo sheegay in 4 askari ay ku dhintay. sabtidii hore warbaahinta falastiiniyiinta ayaa soo xigtay baraha bulshada ee deegaanada israa'iil oo sheegay in 7 askari oo israa'iiliyiina la dilay, halka ku dhowaad 30 kalena ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan 11 si xun ugu dhaawacmay oo xaaladooda caafimaad ay aada u liidato. baraha bulshada oo ayaa soo tebiyey in 7 askari ee dhimatay ay ka mid ahaayeen 4 ka tirsan cutubka Nahal Brigade, 2 ka tirsan guutada Natsa Yahuda ee cutubka Kavir Brigade iyo askari ka tirsan cutubka Gavati Brigade. sidoo kale barahani waxa ay ku warantay in ku dhowaad 30 sarkaal iyo askar laga daadgureeyey marinka Gaza, iyada oo la baahiyey sawirro muujinaya askar Israa'iili ah oo meydad iyo dhaawacyo lagu qaadayo bareelo oo loo gelinayo diyaarado helikobtar ah sida loogu soo gudbiyey goobaha caafimaadka. baraha bulshadu waxa ay ku wargeliyeen dhacdo aad u adag ay maanta ka dhacday marinka Gaza, taas oo aan hore loo arag marka loo eego tirada dhimashada iyo dhaawaca soo gaaray Israa'iiliyiinta. sidoo kale ilawareedyo Israa'iil ayaa tilmaamaya in sarkaal sare oo darajo ahaan ahaa Brigadier General uu si xun ugu dhaawacmay qarax lala beegsaday gaari uu watay. ciidanka Israa'iil ayaan si degdeg ah uga hadlin wararka ay baahinayaan warbaahinta Israa'iil iyo baraha bulshada ee ku saabsan khasaaraha aad u tirada badan ee soo gaaray ciidamada Israa'iil. tan iyo markii uu bilowday dagaalka joogtada ah ee Israa'iil ee ku qaaday marinka Gaza bishii Oktoobar 7, 2023, ciidanka Israa'iil waxa ay sheegteen ama ay qirteen dhimashada 835 askari. qoysaska maxaabiista Israa'iil looga haysto Gaza ayaa sabtidii ugu baaqay wafdiga wadahadallada u jooga magaalada Dooxa ee caasimadda Qatar inay fursadda jirta ka faa'iidaystaan. wararka ayaa waxa ay sheegayaan in sidoo kale waxa ay ugu baaqayaan Israa'iiliyiintu inay caawa ka mudaharaadaan dhammaan Israa'iil hal dalab darteed, soo celinta dhammaan dadka la afduubtay, iyagoo carabka ku adkeeyey in waddanku wajahayo arrimo masiiri ah. waxa ay kaloo ku eedeeyeen ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu inuu diidan yahay inuu sameeyo wixii hagaagsanaa ee saxda ahaa ee keeni lahaa in maxaabiista lagu haysto Gaza dib loogu soo celiyo oo dagaalka Gazana la joojiyo. ma doonayno inaan ciidamadeenna loo diro Gaza si loo soo celiyo meydkooda. wargeyska Yadcoot ayaa soo xigtay ilo xogogaala oo sheegaya in 90% farqigii u dhexeeyay dhinacyada ee ku saabsanaa heshiiska maxaabiista isdhaafsiga hore loo buuxiyey oo intii hore la isaga soo dhawaaday. dhexdhexaadiyaashu waxa ay wadaan dadaalo cusub si loo gaaro heshiis xabad joojina ka hor inta aan madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump xilka uusan la wareegin bisha January 20. wakiilka Mareykanka ee bariga dhexe Steve Witkoff ee uu madaxweynaha la doortay waa Donald Trump ee u magacaabay bariga dhexe ayaa sabtidii la kulmay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, iyadoo ay socdaan dadaalo lagu doonayo in la gaaro heshiis maxaabiis iyo xabad joojin ku saabsan Gaza, sida uu sheegay mas'uul Israa'iili ah. haddaba shirkaasi markii uu soo dhammaaday, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sabtidii shaaciyey in wafdi Israa'iila uu hogaaminayo madaxa Mossad David Barney, agaasimaha Shin Bet Ron Bar iyo mas'uuliyiin kale oo military iyo kuwa isku dhafan ay u safri doonaan Qatar. waxaana ka mid ah baa la yidhi generaal howlgaba oo la yidhaahdo Nathan Allen iyo la taliyaha arrimaha dibadda ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Ofri Falk. haddaba arrimahaasi wakiilka Mareykanka ee bariga dhexe Steve Witkoff ayaa wadahadal waxa uu la yeeshay ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu, waxaana uu jibcihii intuusan ka hor iman magaalada Tel Aviv uu wadahadal kula soo yeeshay dalka Qatar ra'iisul wasaaraha Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani si ay uga wada hadlaan horumarka ugu dambeeyay ee gobolka, gaar ahaan dadaalada lagu doonayo in lagu gaaro xabad joojin ku saabsan marinka Gaza, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar.
kadib booqashadii Witkoff ee Qatar ee dhexdhexaadiyaha Qatar iyo wakiilka ayaa lagu soo waramaya inuu xoojiyay in Mareykanku uu sii wadi doono shaqooyinka lagu raadinayo heshiis si loo soo afjaro dagaalka sida ugu dhaqsiyaha badan kadib waxa uu u duulay Israa'iil halkaas oo uu kula kulmay Netanyahu waxaana la sheegayaa inuu isla maanta oo axad ah uu u soo duulay Witkoff dalka Qatar oo Doha waraysi uu bixiyey William Barron oo agaasimaha CIA-da dalka Mareykanka oo uu siiyey telefishinka National Public Radio ayaa waxa uu ku sheegay isagoo ahaa wakiilka wadaxaajoodka Mareykanka ee uga qaybgelaya arrimahaasi in aqalka cad uu ku hawlan yahay sidii loo heli lahaa heshiis maxaabiista ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Xamaas ka hor xafladda dhaarinta ee Trump William Barron ayaa sheegay in wadahadallada hadda socda waa kuwo dhab ah oo bixiyey fursado qiimo badan ugu yaraana in lagu dhameeyo toddobaadyada soo socdana ay muhiim tahay Xamaas ayaa isniintii sheegtay inay siiyeen dhexdhexaadiyayaasha liiska 34 maxbuus oo Israa'iil kuwaas oo lagu qabtay weerarkii kooxda Xamaas ay ku qaaday gudaha Israa'iil 7 Oktoobar 2023 liiskaas waxaa ku jira baa la yidhi haween caruur iyo dadka waayeelka ah iyo kuwa dhaawacmay si kastaba ahaatee Israa'iil ayaa sheegtay in Xamaas aysan weli xaqiijin in dadka liiskan ku qoran ay nool yihiin ama ay dhinteen haddaba laba falanqeeyo siyaasadeed ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha la doortay ee Mareykanka waa Donald Trump uu bilaabay inuu ku abaabulo taageerada bulshada Israa'iil ee ka dhanka Benjamin Netanyahu si uu ugu cadaadiyo inuu saxiixo heshiis uu la gaaro muqaawamada Falastiiniyiinta si loo joojiyo dagaalka ka socda Mareykanka Gaza wararka la dusiyey ayaa tilmaamaya in wadaxaajoodkii socday toddobaadyadii u dambeeyey uu u dhaxeeyay Israa'iil iyo muqaawamada Falastiiniyiintu ay gaareen heer sare iyadoo la hadalhayo faragelin toos ah oo Trump ku sameeyay si uu xaaladda u xalliyo siyaasiyiintan iyo falanqeeyayaashan mid ka mid ah oo la yiraahdo Dr. Ahmed Al-Hila ayaa sheegay in heshiiska hakadka galay uu ugu dambeyn u muuqdo mid lagu gaaray wejigiisii ugu horeeyay isla markaana hadda laga hadlayo sidii looga gudbi lahaa wejiyada xiga iyadoo aan Israa'iil dagaalka ku laabanin wadaxaajoodka labaad loo gudbayo Netanyahu oo markii hore diiday inuu ballan qaado joojinta dagaalka ilaa laga takhaluso xarakada muqaawamada Islaamiga ee Xamaas ayaa dhowaan bedelay mowqifkiisa isagoo sheegay in heshiis guud ama mid ku meel gaar ah oo lagama maarmaan ay tahay isbeddelka ku yimid hadalka Netanyahu waxa uu ka turjumaysaa cadaadis culus oo Mareykanka ah kaas oo ka dhashay aragtida Donald Trump ee ah in Netanyahu danaha waaweyn ee Israa'iil iyo Mareykanka u adeegsanayo danihiisa shakhsiga ah sida uu sheegay falanqeeyaha siyaasadeed kanaalka 13 ee Israa'iil ayaa soo xigtay ilo wareedyo sheegaya in Donald Trump uu si toos ah ugu farageliyay wadaxaajoodada labadii maalmood ee u dambeysay Bogawala ayaa sidoo kale soo xigtay mas'uul Israa'iili oo sheegay in wakiilka Trump ee bariga dhexe Steve Witkoff uu u sheegay ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani in madaxweynaha cusub uu doonayo in heshiis lagu gaaro dhowrka maalmood ee soo socda gudahood sida laga soo xigtay Wala Witkoff ayaa sidoo kale isla aragtidan la wadaagi doona Netanyahu inta lagu guda jiray baa la yiri kulankoodii Tel Aviv ee Sabtidii waxaa la sheegay in Netanyahu uu habeenkan qaadan doono kulan qiimeyn leh oo uu la yeesho hay'adaha amnigiisa kadib kulanka Witkoff xafiiska Netanyahu ayaa sheegay in loo diray madaxda Mossad Shin Bet iyo wakiilka ciidamada ee kooxda wadaxaajoodka Doha si ay wadaxaajoodyada u sii wadaan Dr. Ahmed Al-Hila waxa uu sheegay in talaabadan togan oo aan hore looga arag ay ka turjumayso rabitaanka Trump ee soo afjaridda xaaladda ka taagan gobolka isaga oo hoosta ka xariiqay in Netanyahu uusan marnaba ka hor imaan karin madaxweynaha Mareykanka haddii mowqifkaasi yahay mid adag oo dhaba hay-adda warbaahinta Israa'iil ayaa soo xigatay ilo xogogaal ah oo Mareykan kuwaas oo sheegay in qaabka heshiiska isdhaafsiga ee hadda la soo jeediyay uu yahay midka ugu wanaagsan ee Xamaas arki karto kana macquulsan dhammaan dhinacyada oo dhan
hay-addu waxa ay sheegtay in israa'iil ay ku khasban tahay inay ballan qaado inaysan dib ugu laaban doonin dagaalka, halka xamaas ay ballanqaadi doonto inay soo celin doonto dhammaan maxaabiista harsan wejiga labaad ee heshiiska. jabrin waxa uu aaminsan yahay in washington iyo warbaahinta israa'iil ay bilaabeen abaabulka bulshada israa'iil si ay cadaadis ugu saaraan netanyahu. wuxuu tilmaamay in hadalka ku saabsan buuxinta 90% ee farqiga heshiiska uusan cusboyn, laakiin waxa cusub uu yahay waa joogitaanka Trump ee arrintan faragelinta, halka uu ka ahaan lahaa Joe Biden oo aan wax cadaadisa weyn saarin Tel Aviv. cadaadiska Maraykanka ayaa u muuqda mid cad oo xoogan marka loo eego wadaxaajoodka hadda socda, sida uu sheegay jabrin ee aaminsan in wadaxaajoodka hadda laga yaabo inuu ku saabsan yahay habka loogu gudbayo marxaladda kala duwan, iyada oo israa'iil ay ballan qaadayso inaanay dib ugu laaban doonin dagaalka haddiiba heshiiska la gaaro. marka laga hadlayo sababaha keena dib u dhacan netanyahu, jabrin ayaa sheegay in Trump uu haysto wax uu israa'iil siin karo ama uu ka jari karo haddii aysan u hoggaansamin waxa uu doonayo, isagoo intaa ku daray netanyahu ma uusan haysan doono inuu halis galo mashaariicdiisa siyaasadeed ee weyn iyo xiriirkiisa Sacuudiga iyo fursadda weerarka Iiraan si uu ugu sii nagaado Gaza, oo macnaheedu tahay inuu ka baxo Gaza. haddii uu doonayo in xiriirkii Sacuudiga iyo Israa'iil caadi laga sii dhigo, isla mar ahaantaana Iiraan tallaabo laga qaado, waa in uu bixiyaa Gaza oo uu ka soo baxaa. dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha lahu waa Sooyaal TV iyo barnaamijkeennii dhacdooyinka maanta. waxaana intaa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenna. intaynu barnaamij kale oo xiiso badan aynu ku kulmi doono, waa Cabdirashiid Gelle oo idinla isma dhaafno.